maalinta salaasada ee bishan August ay 9 tahay waxa Kenya ka dhacaysa doorashada guud ee wadankan waxaana kursiga ugu sareeya ee madaxweynenimada u tartamaya afar murashax oo ay ugu cadcad yihiin madaxweyne ku-xigeenka xukuumadan haatan waqtigeedu dhamaadka yahay iyo ra'iisul wasaarihii hore dalka Cabdifataax Ibraahim haatan ku sugan magaalada Mombasa ayaan bal waxaan weydiiyay sida uu yahay diyaar garowga uu u socdo iyo bal haatan inuu marka hore inoo sheego in uu ololihii joogsaday iyo in kale أحمد ومقالة مومباسا سيدا عادي جيد بهاتن dadku waxa ay u soconayaan inay tagaan shaqooyinkoodii oo gawaarida badan iyo dad baa isdaba marmaraya magaalada joogida oo degan yahay waa dareemaysaa in magaaladu ay tahay magaalo doorasho ku soo socoto oo dhinac walba markaad eegtid waxa ka hor imanaya sawirada dadka musharaxiinta kala gedisan xilal kala duwan wardaya iyo samaacado waaweyn gawaar lagu soo xiray oo dadka codkooda lagu weydiisanay magaaladan muhiimad gaar ah u leedahay marka la fiiriyo dhaqaalaha iyo siyaasadda dalkan Kenya waxa dareemi kartaa in hal mar ay shalay ku sugnaayeen madaxweynaha haatan xilka haya waqtigiisa uu sii dhamaanayo iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ra'yahan haatan dhanka siyaasadda ku kala duwan oo maanta la filayo in Raila Odinga oo isna dhinaca kale uu iman doono jawiga aad buu degan yahay waxaad madax xoogaa inay ka qabowda magaalada sidii hore waxaa ku sugnaa shalay magaalada tan madaxweyne ku-xigeenka dalkan William Ruto oo haatan musharax u taagan xilka madaxtinimada wuxuu sheegay in uusan isagu beenlow ahayn oo markasta uu ku taagan yahay wadada saxda ah wuxuu sheegay in magaalada Mombasa dadka degan uu u soo celin doono hawlihii dekada oo haatan uu sheegay in magaalada meel ka baxsan lagu qabto wuxuu sheegay oo kale in dadka danyarta uu sanduuq u furi doono wataa laakiin madaxweynaha qudhiisa oo isaguna arrimahaasi ka hadlay oo ay siyaasadana aad isugu hayaan muxuu ka yiri hadallada Ruto madaxweyne Uhuru Kenyatta oo maalmo kooban ay u harsan tahay markasta uu caddeeyaa in uu ka raadin yahay madaxweyne ku-xigeenkiisa Ruto oo muddo dheer saaxiib ahaayeen oo 10 sano ay soo shaqeeyeen xooggiisa shalay markuu hadlay wuxuu saaray mashaariic horumarineed oo halkan uu ka furay wuxuu xariga ka jiray bundada Makuba oo dhismaheeda uu ku kacay 4.5 bilyan oo lacagta Kenya oo u dhiganta ku dhawaad 40 milyan oo dollarka Mareykanka sidoo kale wuxuu furay bundada Liwatoni oo isku xirta dhinacyada magaalada iyo dekad shidaalka oo kaliya uu ka soo dago oo lagu magacaabo Kibefu oo iyana bilaayin lacagta Kenya uu madaxweynuhu ku bixin wuxuu sheegay in uu doonayo in maamulkiisa uu maalgeliyo bilaayin lacagta Kenya si uu u horumariyo dhaqaalaha Mombasa iyo guud ahaan bariga Afrika iyo wadanka Kenya gaar ahaan marka wuxuu sheegay in muddadii uu joogay uu shaqo wanaagsan soo qabtay haatan uu ka tagay xilka isagoo dadku ay ku xasuusan doonaan wanaagii soo maray dhanka dhaqaalaha Cabdifataax waxa la filayaa murashaxa kale ee Raila Odinga laftiisu inuu maanta yimaado Mombasa sidoo yahay jawiga ma socdaan olole lagu soo dhaweynayo aad iyo aad Ahmed waxa dareemaysaa in magaaladan si gaar ah ay muhiim ugu leedahay musharaxiinta ugu waaweyn ku tartamaya xilkan madaxtinimada shalay waxa joogay William Ruto madaxweyne ku-xigeenka maanta waxa imanaya Raila Odinga oo isna ninka sida weyn ay u loolamayaan Ruto fagaaraha Tononoka ayaa lagu wadaa in maanta uu ka hadlo oo uu ku soo bandhigo waxyaabaha uu hayo magaaladan iyo guud ahaan dadka Kenya shalay wuxuu ku sugnaa magaalada Kisumu halkaas oo uu kaga hadlay taageerayaashiisa sida siyaasaddiisa ay tahay iyo waxyaabaha uu doonay in uu ku horumariyo dhanka kale golaha culimada ayaa masaajidda ugu baaqay culimada in ay maanta dadka ku wacyigeliyaan in nabadda ilaaliyaan maadaama salaada jimcaha ay qaban doonaan khudbadihii loogu talagalay sida daradeed ay diiradda saaraan si dadka ay wanaaga iyo nabadda uga shaqeeyaan xilligan doorashada lagu guda jiro waa tahay saraakiisha guddiga doorashooyinku iyagu ma hadleen oo ma ka hadleen sida ay doonayaan inay u qabtaan howlaha iyo diyaar garowgooda saraakiisha doorashada waxay sheegeen in ay diyaariyeen wax kasta oo loogu talagalay doorashada oo maalinta talaadada soo aadan ay furmi doonaan goobaha codbixinta waqtiga loogu talagalay wax walbana ay diyaar yihiin dadkuna ay u diyaar garoobaan inay codkooda dhiibtaan aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim Cagayare oo haatan ku sugan magaalada Mombasa ayuu hayo faahfaahintaasi nasiinayay haddaba doorashadan ayaa dhacaysa iyadoo ay dalka ka jiraan duruufo dhaqaale oo saameeyay shacabka dalka heerka sicir bararka maciishada ayaa bishii Juulaay ee dhamaatay gaadhay halkii ugu sareysay muddo 5 sano ah oo ah 8.3% waxaana qaaliyoobay cuntooyinka asaasiga iska daadan yartay xataa shaqaalaha dabaqada dhexe ayaa mushaharkoodu u buuran yahay ayaa la sheegaya in maciishadu ay aad ugu adag tahay oo aanay waxba u taraynin waxa ay qaataan sida ay warbixintan ku eegayso Mercy Juma oo warbixintan ka soo dirtay magaalada Nyeri waa kan Siciid Anteno oo soo jeedinaya
waa subax sabti ah oo uu jiro qabow heerkiisu sarreeyo. Jennifer waxay ka shaqaysaa beer yar oo ay ka baxaan kaabashka oo loo beeray qaab wanaagsan oo saf ah. Waa macallimo dugsi hoose ah, waana haweeney dhashay 3 carruur ah. Sidoo kale waa daryeelaha kaliya ee ninkeeda, kaasoo ay kaga soo baxday maskaxda buro. Maalmaha fasaxa ah waxay waqtigeeda u hurtaa inay ka shaqayso beerteeda. Haddii dalagyada beerta ku abuuran aanay si wanaagsan u soo go'in, waxaa laga yaabaa in ilmaheedu aanay helin cunnadii ay quudan lahaayeen. nimekuwa nikisurvive na ndeni. waxaan ku badbaadinay dayn. maalin waliba waxaan qaataa dayn. markaan iibiyo waxaan ka soo gurto beerta. waxaan ku soo shubtaa lacagtaasi taleefankayga si aan ugu maareeyo nolosha qoyskayga. niweze kulisha na kulinda familia yangu. Jennifer ayaa soo bixisay taleefankeeda oo ay tustay mushaarka ay qaadatay bishii June ee ina dhaaftay. 4 sano ee la soo dhaafay mushaarka asaasiga ah ee Jennifer sidiisii ayuu ahaa. waxay qaadataa bishiiba $320 ka gadaal marka ay bixiso canshuurteeda iyo wixii kale sharciga ah iyo deymihii lagu lahaa. waxay guriga la tagtaa $190. Kwa huu mshahara wangu niko na majukumu kama vile kuwalisha watoto. mushaarkaas waa inaan carruurta ku quudiyaa, bixiyaa qarashaadkooda, daryeelka ninkayga oo maskaxda laga qalay oo isticmaalaya dawooyin aad qaali u ah, waxba ma kaydiyo. haddii ay haatan ila soo gudboonaato xaalad degdeg ah, ma daryeeli karo dadkani. Sina ile pesa naweza sema iko kwa mfuko nigaramikie. How you guys doing? Fine. dhanka kale ee magaalada waxaan kula kulmay Thomas, waa kalkaaliye caafimaad oo ka diiwaan gashan isbitaalka degmada. waa waalid 2 carruur leh. maadaama ay tahay sabti, caadiyan waxay u bixi lahaayeen qoyskiisa maalin joog dibadda ah, laakiin maanta arrintaasi raaxada ah ma awoodaan. Over the last 1 year, I think that's when you've been really hit hard. halkii sano ee la soo dhaafay aad ayay waxyeello noo soo gaartay. waxaan shaqeeyaa 8 ilaa 5 saacadood, laakiin wixii intaa ka baxsan waa inaan baadi goobaa ila dakhli oo kale. waxay ahayd inaan shaqo kala helo, sida inaan furto isbitaal yar oo aan qaabilo bukaanno, iyo inaan sameeyo in aan guryaha ku booqdo dadka jiran. tani waxay la macno tahay inaanan awoodin inaan waqti ku filan la qaato qoyskayga. The family time that I need to spend with my children. sanadkii la soo dhaafay 2 kiilo ee galleyda ah ee ka baxda Kenya ayaa kor u kacday 119%. litirka saliidda ah 117.4, halka 800 garaam saabuunta ah oo sicirkeedu kor u kacay 38%. qiimaha sareeya ee nolosha ayaa si weyn waxa uga dhex muuqday ololaha doorashada Kenya, gaar ahaan qiimaha sare ee cuntada. waxay murashaxiinta tartanka madaxweynenimada ugu cadcad ka doodayeen sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo arrinta sicir bararka. Raila Odinga ayaa waxa uu ballan qaaday barnaamijka daryeelka bulshada, taasoo loo qorsheeyay inay qoys waliba oo faqri ah la siiyo bil waliba $60. William Ruto ayaa waxa uu ballan qaaday inuu abuurayo waxa lagu yeero Hustler Fund, kaasoo lagu bixin doono $500 milyan oo lagu caawin doono ganacsada yaryar iyo kuwa dhaxaba. laakiin dhaqaalayahan Ken Kijinga ayaa sheegaya in ballamadan laga yaabo inay noqdaan wax aan afka baarkiisa dhaafin. The negative is they don't exactly tell you how they're going to fund these promises. midda ugu daran ayaa ah inaysan si sax kuugu sheegaynin sida dhabta ah ee ay u hirgelinayaan waxa ay ballan qaadeen. waa run in lacagta caddaanka ah ee ku dhex wareegaysa dhaqaalaha ay tahay mid xadidan. haddii ay qorsheynayaan inay sameeyaan iyaga oo kor u qaadaya canshuuraha, marka waxay nolosha kusii adkaynaysaa dadka Kenyaanka ah. sida ay tahay in looga fikiro fikradihii la soo jeediyey hirgelintooda, iyadoo ay dad badan oo Kenyaan ah aaminsan yihiin in ballanqaadyada ay iska yihiin dhalanteed oo nolosha ay kusii socon doonto sida and life will continue being as it is. Thomas iyo Jennifer ayaa labaduba waxay sheegeen inay aad u yar tahay rajada laga qabi karo inay fuliyaan ballanqaadyada ay ka dhex sheegaan siyaasiyiinta ololahooda doorashada. Nikiwaangalia hasa wagombeaji wa hii kiti ya urais, markaan eego musharaxiinta madaxweynaha oo aan dhagaysto tusmooyinkooda, dowladda haatan jirta ayaa ka ballanqaad wanaagsaneed. marka la isku daro Raila iyo Ruto waxyaabaha ay haatan sheegayaan, haddana ma jirto waxa ayna tartay. markaa ma jirto rajo, waa aniga iyo Ilaahay. nitaishi peke yangu na Mungu wangu. inkasta oo ay dad badani u arkaan doorashadan mid muujinaysa Kenya waxa ay tahay, qaar badan oo kale sida Jennifer ayaa ka baqaya kala-geed ku timaada tabaqada siyaasadda iyo codbixiyaasha intooda badan, iyo waxa ay tani uga dhigan tahay dakhliga soo gala ee maalinlaha ah.